وحدعي أبار بأن صور ذا دولكي كيمد قلبي قيد قاتين قولي دماغا دادكي بادي مانايه وحدي إلا أوكعا xaaladda abaarta degmada Raka Raaxo iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ka soo daraya xilli ay isugu soo guureen reer guuraa ka kala yimi gobolada Puntland maadaama roobabkii u dambeeyay ay ka da'een deegaanadan taasi oo ay sababtay in uu bato culayska biyo la'aaneed waxa laga soo baadiyay nugaal sanaad bari inta wala sameeyay ummadan wax istaqaana ma ilaahay baa koobanta inta adeer ummadda ummigeena halka joogta waa inta maanta meesha isugu timi laakiin intii ka badnayd shacabkaas ku jira shacabka qaranka ku jira qofku haddii uu biyo haysto harguu dubtaa neefkiisa dhintay oo caatada markuu adimada ka goosto oo caatada cuno haddana waxa weeye biyuhu ka dabageeya ama cid baa nolosha ku soo gaadha ama isaga kuba noolaadaba aniga idin la haylayaa soo dubtay waa soo gudadaan ka mid ahay waxaan ka soo guurnay anagoo xaafad badan deegaanka Dangorayo hadeer meesha aan ka hadlaya waa qararka karkaar xooluhu waa xuuqmayaan hadeer meeshaan kala hadlaya dhirta iyo lugta intaba waqtigu waa saaraya isagoo kiila waa la guba qarka looga soo dheelmadaa inta waxa noo weeliya biyo xumo biyaha waxa laga doonaa Rako 250 ilaa 300 inta u dhaxaysay ku yimaadaan xoolihina wax la gatay wax la qasho midna male gudoomiye ku xigeenka degmada Raka Raaxo Jaamac Maxamuud Nuur ayaa kormeer indha ku tagay deegaanada hoos yimaada degmada Rako si looga jawaabo baahiyaha reer guuraaga abaaraha ba'ani saameeyeen wuxuuna kormeer ku tagay deegaanada kala ah Budhoyo Kur Ilaalo Gacan Kala Foge Farmoqor Cambar Hoose iyo deegaano kale oo isugu jira tuulooyin iyo goobaha ay degaan reer guuraaga ninkii wuxuu gabi karaa 10 boqol ninkii keena kumbeeyood boqolkii qof oo min 10 boqol la keeno waa kumbeeyood oo deeqda meel kastana dhibaatada Puntland way ka jirtaa iyo abaaro way ka jiraan halkaan dayo waa meeshii naqa ugu dambeysay oo naqa loo soo raacay gobolka Karkaar baa laga yimi gobolka Nugaal baa laga yimi gobolka Sanaag baa laga yimi gobolka Sool baa laga yimi gobolka Mudug baa laga yimi intaas ummadeena waxay joogtaa halka deegaanka dadkii hore oo anagu aan macnaheedu mas'uuliyad aan u qaadano u dhaaranay 12,000 dad gaaraya bay ahayd ilaa 10,000 baa soo raacay 22,000 dad gaaraya baa hadda ku nool deegaamadan biyana ma haystaan baadna ma haystaan nin walba gaaraba lacag ka soo qaaday arag cilaa buu dhigay oo ka dhaqaaq Umar Xasan Nuux iyo reer guuraaga kale ayaa ka waramay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada iyagoona sheegay in biyo la'aanta jirta ay sababtay in ay waxyeelo isu geystaan dad walaalo ah wadankan meeshan waxa la yiraahdaa farmada badan baa ku nool barkadaas ay motor ku shubtaan waxa leedo loo xaajo lamana helo motorkaas maadadii dunyada loogu shubaa waxaan ugu soo gaaray qayla dhalaan nooga timi degmada Rako noogu timi oo ay ka bilaabatay laba nin oo walaalaayo aabe iyo hooyo wada dhaleen oo shalay isku diray magaalo meesha la yiraahdo Goono tanag biyaaba isku direen iyo gaari tanag reerkayga maxaa la soo dhaaftay maxaa la koomidiyay iyo kaas uma qaybsamo reerku baa la isku diray gudaha xal lagu geeyay meesha la yiraahdo Garowga mid toori halka laga shubay midna toorina waa lagu dhiftay gacanna waa la jabiyay kaax meesh baa la geeyay kaas nugaal baa bahasha Garowga la geeyay qayla dhalaantaas ayaamaha kan ba ay socotay oo aanu biyihii baraagaha aanu gaadiidka u qaybinay kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn aan u qaybinay baraagaha u qaybinay oo la dhameeyay Rako iyo duud hooyada oo awal aanu gurmadkaas hore noo galay hadda aan 2 bilood ku jiray ayaa qayla dhalaantaas
cuntadii dadka iyo cuntadii xooluhu ay isku go'een hal mar bay wada go'een adduunka waa la iskala socdaa waqti ballaaran baa dhacay jiilaal adag baa dhacay biyo la'aan baa dhacday biil la'aan baa dhacday ilaahdo gaariyaa biyood baa dhacay oo sidaas haddeer odagii iga horreeyey guddoomiyaha sheegay waxa biyo u ah goobta aanu taagannahay meesha la yidhaahdo rako waa biyo matoor xooluhu way iska cabbi karaan iyagoo aan u roonayn laakiin dadku ma cabbi karo waxaa noo xigta meesha la yidhaahdo dhuudo iyada dad iyo dunyaba waa cabbi karaan laakiin meesha loo marayaa waxay tahay taraag dheer waxaa dhacay abaara ba'an sawirada dhulkii ka yimid qalbigay dhaqaajiyeen qolihii dhammaada dadkii baa dhimanaye wixii dhigla oo kacaa madaxweyne deegaankan aanu joogno waxa la yiraahdaa duud hooyo waxa ka da'ay roobkii dayreed baa ka da'ay ummad baa isugu soo guudhay fara badan waxaa la isaga yimi gobolka bari gobolka nugaal gobolka sanaag meesha la yiraahdo beyla oo degmo ah intaas baa ummaddii ku noolay timi roob baa laga digay roobkii laga digay ummaddii joogta meesha isugu timi biyihii waa laga laastay ceelbiyoodna meeshu ma leh matoor ah ama wiyeer ah ma leh ummaddii meel ay ku noqoto ma hayso dhulkii weli joogtaa abaar baa garaacaysa biyo la'aan baa garaacaysa rafaad baa jira dad iyo duunyo waa la rafaadsan yahay ceelbiyood reer kulaalaanu nahay ilaahay baa dadka irsaaqa wax siiya asaata biyo waa naga go'een ilaahay baan uga barnay isagaanu ka sugeynaa bismillaahi raxmaan raxiim deexa biyood oo maanta waddanka yistaal oo la helaa iga dhahay haddii awow ma jiro laakiin waa iga dhahay waxaan u baahannahay gargaar ilaah u baahannahay gargaar xaalad lagu baahannahay ilaahay baa wax laga helaayo dee aadmiga isaga wax siisiyo waxaa jira garab siirreeyeen garab siirreeya arrimo iista laakiin oo iska socdo ariska dabooda baa jira oo waxa weeyaan qorax qalwalba dad baa jira qalaawadan oo dad dusha biyo ku dhaasada dad baa jira magaranaysaay aan khaashi kada iibsan karinba sidaasna dee ilaahay la cabsadaa intaas annagu idiin sheegi karaan